reer qurbo joogtana waxyaabo kana raadinayna waxaan raadinaynaa meel cunugeena quraan ku barto akhlaaqda loogu dhisi karo maxaa la dhihi jiray wixii aan rabnay because anaga hadda we have like wax kasta inta waa ku haysataa soma waxa kaliya loo cararaa waa just ilmahaas un qof weyn oo dhaha American ka carar ma jirto unless aad rabin inaad nasato dad ku shaqeeyaan ma ogeyn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وعلى فتوش فاميلي سودا وهذا وولاشي فتوش channel كداول يسموه فتوش فاميلي حتى بس أكركوا سؤالتين ما نحن حربنا إن وحن شوقنا we are pretending we are in Turkey وح كهذا يا موضوعي والدين تيجسوين أو نصعدي أو أحد صوماليا مادام فتوش تقدم قدشوا صوماليا لأنها أغلبنا هي تركيا يعقله ده وطن كيني تركي الله أكبر taasma maanta ka sheekeynayna marka hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar hadii aad nagu cusbeen subscribe saar gambalaalkana furo waa muhiim waxay ka caawinayaan inaan wada joogno soo hadaba waxaan ka soo sheekeynay Soomaaliya xagga amaanka in yaani iska jirto fadhi la'aan waxyaabaha ay ku wanaagsan tahay wadankii ilmahay u fiican tahay ilmahayse ay yara dhib ku noqonaysaa noloshiisu kula duwantay waalidiinta in la rabo in yaani strong aska dhigta awgaad waxa ka tagays iyo waxa u socotay reasonka ugu socotay sababta aa u dooratay waa inaad ogtaa because markuu qofku og yahay Soomaalidu maxay ku maamaayeen horta markii waxay dhaheen meeshaad yaani meeshii aad u socotay intaadan tagin soo horta meeshaad ka timid ina ogaatay ma aha soo camalayna marka waxa waaye adoo waxa waaye og markaad ogtahay waxa sameynayso way ka fiican tahay adoo iskaga yaacday camalno marka insha Allah markii isaas ay tahay oo xagas Muqdisho aan ku soo aray Turki baa imaatay horta number 1 waxa aan meelaha kala ku dooranayno oo aan uga hadlayno waanida ogaatid because wadankeeni baan xasiloolayn waxyaabaha qurbaha na joojiyo oo na fariisiyay ayaa wali ka jira runta waa runta markii loo hadlayo qurba ma na joognay maanta wadankeena haday bush bac ka jiri lahayn qurba qof joog la mara qof kasta wadankiisa u dhaqaaqi kara soo hadaba waxaad ku darsataa inaan anigu jeclayn inaan wadamada kale ka hadlo iyo noloshooda aad ka hadli kartaa is okay laakiin inaan wadankayga barbar dhigo in ay keentay dib ma ogiye yaani dib nahaysto camal oo kale yaan wadanka inuu dawladii iyo dibkii aan wali ka bixin sidaas darteed inaan isku barbar dhigay ee markasta home is the best yani west or waxa lagu dhihi jiray maxay east or west home is the best ali so markasta home is the best laakiin maadaama aanan ahayn dad fadhiya darteed baa isku barbar dhigaya soo maanta Turki baa joognaa Turki aniga waan tagay reasonka aan u tagay waxyaabo badan reasamo badan ayaan u tagay laakiin mid kamida wuxuu ahaa inta waalidkaas wuxuu siyaad yani waa sidii aan inii dhahay first iska soo fiiriyo meesha soo sidaas darteed baa u tagay soo marka waa sheekadiisu waa dheer tahay soo waa inaan kala qeybqeybno soo marka hore waxaan ka hadlaynaa waxa bad go'aansata Turki waad yani inaad aadid waxaad ku qasbantaa horta marka hore inaad og tahay waxa aad ka cararaysa iyo waxa aad cararaysa yani maxaad inta uga baxaysaa oo raadinaysa markaad ogaatid ay macna ku sameynaysa inaad Turki degtid soo maxaan ku soo arkay horta hore Allah u barakeeyo wadanka farasti dad baa dhistay dad baa ka dhigtay sida uu yahay I feel jealous marka meelaha taga qaarkood ana I wish wadankayga saan inuu ahaan lahaa ay maanta dhaqayna I wish saan inay dhiclahayd I wish yani way noo rumoomi doontaa way noqon doontaa laakiin dad baa dhistay Allah u barakeeyo Allah u istaajiyo si quruxda badan Allah ka dhigo waxaan ka hadlayaa waalidiinta u guuray marka laga hadlo nolosha Turkiga nolol ahaan yani sida hadda waxaan ka hadlayaa nolol American ku noolaa Soomaaliya waa meel degan waa meel cimiladeedu kala duwan yihiin yani ka soo qaado waxa lagu leeyahay qayb baraf baa ka dhacaysa qaybna baraf kama dhacdo waa يعني قيبتها دكتي كحرانت ووطن بورة بدن أو بورة له أفراد يساء لا صعب بها قاركودنا بورة ما له لكن ساس بو بديه نلوشيس ورقيس وتشيب أد برقيس وتهاي هذين نقلنا هاد مالها كلا لما دقنا سما هذين نقلنا حاجة كيرة هذين نقلنا هاد حاجة قرية كذا شذا
hadday noqon lahayd xagga nolosha caadiga like basic life like cuntada raashinka waxyaabaha oo la bixiyo waa very very cheap marka loo fiiriyo dee wadamadan aan ku noolnahay soo maaha soo marka qofka dadka siday wadankii jooga ama meelo kale uga imaanaya wadankii kala duwan yani Soomaaliya goboladooda kala duwan waxaa laga yaabaa inay yani qofkaas macnaha ay u sameynayso imaanshaha uu imaanayo iyo qofka qurbaha ka soo tagay imaanshaha uu Turki tagayo inay two different things tahay for example qofka Soomaaliya ka imaanaya Soomaaliya ka tagay amaan daro ka soo cararay waxa laga yaabaa inuu raadinayo meel ku nasto ilmihiisa wax uga bartaan xogaa quality waxbarashada leh oo nolosheedu cheap tahay waxyaabahaas annaka kaba soo qaad reer qurbo joogtana waxyaabo kana raadinayna waxaan raadinaynaa meel cunugeena quraan ku barto akhlaaqda loogu dhisi karo maxaa la dhihi jiray wixii aan rabnay because annaka hadda we have like wax kasta inta waa ku haysataa soma waxa kaliya loo cararaa waa just ilmahaas un qof weyn oo dhaha American ka carar ma jirto unless aad rabin inaad nasato dad ku shaqeeyaan ma ogi sidaas waa soo marka weligiina isku qaldinayna dadka waa imaanaya Turki ka imaanaya Soomaaliya imaanaya adiga qurbo ka soo tagaysa ee Turki imaanaya sidoo kale waxa loo tagaa qaybo badan oo ah ganacsiga dad u tagaan dad waxay u tagaan deganaansho dad waxay u tagaan caafimaad dad waxay u tagaan waxbarasho dad waxay u tagaan dalxiis haddana midaas because waxa laga dadkii yalda dad badan baa Turki u orday you don't know macnaheedu oo maadeen you don't know waxa u socotid midi waa midaas soo nolosheedu markay cheap tahay adiga waxa laga yaabaa inta marka aad joogtid inaad nolol cheap iyo guri iyo waxaas aad ku ordeynin eed ku ordeysid inaad ilmahaaga wax bartid dugsi iyo iskuul iyo ay wax kasta ay kaaga helaan soo marka taas uga soo baxay soo waalidiinteena hadda inta ku jirta dad baa waxay ugu dheen faadimo ganacsiga soo waran ganacsiga uu socona dad baa waxay ugu dheen ka soo waran maxaa la dhihi jiray ilmaha iyo qoyskii deegaasha ilmaha if you know why you going ilma iyo deegaan iyo wax kasta cheap bay ku tahay wax kasta ku tahay laakiin anigu waxa aan ku dareemay dadkeena dibadda ka soo tagay dadka Soomaaliya ka soo tagay kama hadlaya dadkeena dibadda ka soo tagay xogaa inay ay iska fiiriyaan before ay sameeshay aadinin before aad u guro hirga aadhin inaad samaysid inaad aadid oo meesha soo investigate garaysid oo soo fiirisid because ani ahaan waxa soo dareemay dibad aan ka soo tagay and dibad imaaday that's how I felt saasan feel garay because Soomaaliya marka u guurtid waxaad arkaysaa masaajid waxaad arkaysaa cunugiyo dugsi aadaya waxaad arkaysaa hooyada xijaabka qabtay waxaad arkaysaa Soomaaliya meesha lagu wada hadlayaa luqadii ilmaha everything wax kasta arkaysaa Soomaa laakiin xagga markaan tagay systemkii aan ka tagay un baa arkay soo marka hadii lacala aan rabo cunugayga inaan quraan soo baro bay'ada ka soo bedelo luqadda ka soo bedelo Soomaaliga Turki optionkayga uu ka dhimanayaa optionkaas ma jirayo laakiin hadii qofka aad raadinay aniga waa just waxa iska rabaa nolosha raqiiska jiibka ah maxaa la dhihi jiray aan ku nasanayo because hooyinka ku nasan kartaa dad meesha tagtid nolosha raqiiska ta America buuqeeda ay sahayn shaqaale iska qabsatid guri qurux badan iska degtid waa rest maahan hadii aad leedahay waa taas laakiin qofkii raba in uu quraan oo dhaho quraana u aada Turki ilmaan akhlaaqda ugu soo dhisaya waxyaabahaas qurbe inaad degantahay ayaa soo dareemay soo taas way loo leeyahay waxa laga yaabaa inaan kala niidnahay anagii maadaama aan soo dareemay inaan qurbaha aan ka tagay hadda qurbe kala soo tagay because yes Turki waa laga adimaa yes masaajid way leedahay laakiin different luqaday ku hadlaan different dhaqan bay leeyihiin waxa laga yaabaa dadkaas dhan maanta oo dhan inaad arkeenin wax sunna ka muuqato kaba soo qaad laakiin all of them Islam yihiin so you see from كل واحدك يوروب كإما واحد لهن سام يوروب like سام سيدا هذا نوتها ولا نوتها لكن مركا لقدنا علمه سكول برايفت إن جيسي مو سكول تركي مركا جيسي أو سكول تركي علاقة ستة أتلا سكول تركي جينا أو برايفت كان كما بيحكره وحكوا نقنسا إنه لقدو ذي نمبر 1 لقدي أحلو برا لقدي عنقو هذا لقد والله مركا قاركود I don't know maybe iskala fikradid luqada hadda dadka Soomaaliya ka soo tagay
oo imaado turki luqadda baranaya iyo luqadda anaka ilmaheena ka soo tageen dibadda oo luqadda turki baranaya very different waa fiiriya because cunugan maxaa samaysay qofkaas waxa way uu ka Soomaaliya tagay nolosha asaga wari qurbo ma arkinin uu imaanay cunuga luqadiisa taftu ku hadlaya Soomaaligiisu ku hadlaya waxa laga yaabaa Soomaaligiisu ku hadlaya just dhaqanka uu imaan just luqadaas bis inuu barto ayuu ku fikiray laakiin cunugan أول هرو يقان اللغة إنجليزية دقن كلا أو قربو يقانه واد وضي دقن تركي باجيسي أو لغة كلا لجرب إنه برتو بلاس أدري أول بكو استراجل جرسنا الصومالي وسن تركي كوجو برنين أنا لسه برجع قد برجع كليو كوجو برن كراك جاء لغة كلو برنا صومر كوحوي هذا أنت اللغة دي ربتي هايو إن أصول استيد تركي جه is not option maybe وكل دكون عنكنا لكن لك وطن أهان وحنكو ما شاء الله يعني وحكرة وأنا دقن كاس أهان مؤوية يعني دتك قربها ولي بس بشري كم صارك وميل صومالي ما شاء الله شقي سنة يسو محل هيجري جناعسي كسمايان يسو نرشود معلومات كده عرسنيان جناعسي يكل دون أي كسمايان بيسفول النبض عجيب قروح بدن لكن dad baa dhididkooda u daadiyay taasna mar badan baa in kaga sheekeen doona waxyaabo aad iyo cajiib galiyay oo يعني مرة وتشارلز باندريميا أو ده وطن كي واحد أوش إن أساسه قلا يعني إيجو ونوجل لها وطن النمد يعني إنه وجل لها مركز كله اسمه يور كانتري تبع حواي تركي مركز تأجو ووطن كله وما شاء الله ده ضد كان سود وي لكن ده وطن كان هو وحلم هذا مال إن شاء الله مركز توبي كان تركي إن شاء الله ونوسي ودنا ضد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.